madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo booqasho shaqo ku yimid magaalada Berbera ayaa maanta barqadii booqday dekada cusub ee ay dhisayso shirkadda DP World oo dhamaad xilligan ku dhow iyo waliba shaqada ka socota dekadii hore ee magaalada Berbera. madaxweynaha oo ay wehelinayaan wasiiro sare oo ka tirsan xukuumaddiisa waxa warbixin ka siiyay horumarka ka socda dekada Berbera maryaha guud ee dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdilaahi. anagoo ka duulana mudane madaxweyne siyaasadaadii alxamdulilaahi rabbil caalamiin inay maanta soo gabagabowdo oo muddo gaaban oo 60 cisho uu ka hadhay maalintaad xadhig ka jari doonto maantana ay noo tahay sharaf dheeraada si aad u soo xoogwaal ogaato aad noo soo kormeertay sida ka muuqatana boqolkiiba 95 waa gabagabo waxa hadhay dhismayaashii xalxaalkii raa iyo rinjiyeyntii iyo nashqadeyntii insha Allah bidmillaahi kariim dekad ahaan marka la eego dhinaca mariiniska iyo dhinaca operationka labaduba way isu dheeli tiran yihiin dhammaan taagigii loo baahnaana way dhammaystiran yihiin pilot boardkii insha Allah waxaan rajaynaynaa marka koor dhowrka furmo in ay soo maraan maraakiib aad u fara badan iyo cargo fara badan oo u socda dalka Ethiopia iyo gaar ahaanba mandaqada iyadoo lagu sameyn doono transshipment fara badan oo maraakiib badan ay iman doonaan awal waxaan noo iman jiray maraakiibta yaryar ee feederiska ah ee ugu dheer yihiin 243 kuwaas imika halkan ay ka qaadi doonaan marka transshipmentka la sameynayo si ay ugu qaybiyaan dekadaha mandaqada oo dhan marka waa guul Soomaaliland gaadhay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay noo barakeeyo tan capacity-geedu markuu gaadho 57% waxa iyadana la bilaabi doonaa 400 ee kale ee qorshaha inagu jirtay oo iyaduna 400 mitir oo kale oo tan ku soo xirmi doonta hadii Ilaahay idhaa marka guud ahaan madaxweyne waxa weeye guul soo heetay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahayna waxaan baraynaa inuu Ilaahay nagu guuleeyo inaguna xafidana insha Allah marka dekada la furo dekadu waxay qaabilaysaa maraakiibta ugu waaweyn ee dhererkoodu yahay 480 mitir iyo wixii ka yar insha Allah maalintan furanayna waxa ku soo beegmaya marka uu dhererkiisu ka weeyahay 360 mitir. madaxweynaha Soomaaliland Bixi ayaa dhankiisa u mahadnaqay dawladda Imaaraadka Carabta oo iyadu u sababa maalgashigan balaaran ee ka socda dekada Berbera. dhanka kalena waxa uu si adag u duray siyaasadda kacsan ee xilligan ka taagan dalkaasi Soomaaliya. horumarkan ka socda Berbera gaar ahaan dekada waxaan aad ugu mahadnaqayaa dawladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiiraday inay maalgeliyaan Soomaaliland oo cadawgeeda badan in badan u sheegay inay tahay meel aan ammaan ahayn ama aan lagu aamini karin ama aan la aqoonsanayn waxaan ugu mahadnaqayaa dawladda Imaaraadka Carabta oo ilaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ka dacweeyeen dadkii markaa maalinta xamar maamulayay maxaad u maalgelinaysaan Berbera waxa Ilaahay mahadiya maanta inuu mashruuci balaarinta dekadu gabagaba yahay waxaan u sheegayaa raggii markaa xamar talada hayay ee dagaalka inta alle ku jiray iyo kuwii ka dambeeyay ee hadda joogay ee dagaalka ku ka badan galay horta waxaan u sheegayaa maanta Berbera horumarkeedu iyo nimanka ay caawiyay ee dhaqaalaha inta alle geliyo waxa weeye waa horumar Soomaaliland ay gaadhay iyo shacbigeedu horumarka Soomaaliland gaadhayna waa mid caalamka oo dhan u dana oo caalamka meeshii horumar loo sameeyaba bini aadmi oo dhan baa ka faa'iideysta oo waa lagu farxaa waa horumar soo kordhay geeska Afrika waa horumar soo kordhay inta af Soomaaliya ku hadasha oo dekad Soomaaliland leedahay ay walaalayihiin laba dawlad la kala ahaado saddex dawlad la kala ahaado laakiin mid dawlad dal ka xigta dekadaha kale oo dhan oo Turkiga uga baahanay oo aanay ka baqanayn oo ay say doonaan u adeegsan karaan waxaana dekadu u adeegaysaa dhammaan geeska Afrika oo dhan ilaa Afrika gudaheeda ayaynu adeegaynaa marka waxaan kala saarayaa shacbiga Soomaali meel uu ku nool yahayba inay tahay dekadoodii oo ka adeegsan karaan oo toolba ka xigta oo toolba uga dhow waxaan u sheegayaa dadka talada hayay maanta dalka Soomaaliya iyagoo tashan kari waayay tana la dagaalamay inay maangaabnimo u ahayd
wuxuu soo kordhayay geeska Afrika iyo Soomaaliya waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka halkan ninkan muxuu ahaayeen DB World u jooga sida dhaqsaha leh ee waqtigii aanay mid marnaba uga daahin iyo tayada fiican ay fuliyeen aad iyo aad baan raalli uga nahay kambariga DB World sida iyo waqtiga uu shaqeeyay aad iyo aad baan uga mahadnaqay shacabka Soomaaliyeed waxa la gudboon maanta oo Soomaaliland meel walba fariinteeda gaarsiinaya horumarku wuxuu ka yimaadaa marka aad tahay qof la fiisa daryeelaya if iyo aakhiradiisaba qof wal oo u yimaadana si walaaltinimo ula nool oo ay wax isdhaafsan karaan oo ay wada shaqaysan karaan marka waxaan leeyahay waa inaynu noqonnaa dad ilbaxa ummadda ilaahay bini'aadmiga bini'aadmiga oo dhan la shaqaysan karta markaas baan horumar gaari karnaa وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي جاها بلشة تي في مقالة بربراء.